الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلها لا يستعقرون ساعة ولا يستقدمون. الحمد لله. أولا إله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله الله نعبورتي أدون كنا كيناي نإرزاقه نديله ننوليسيه أيام هذا نسكاله الله كوم كحكمه الله الدنيا ده أنت كسوغان حكم كوضا بحيو عافمات كوضا بحيو جيريدو ذا بحيو نرشو ذا بحيو الله حاس أيان أولا إله سبحانه وتعالى أقوم هدعينينا waxaa halkaan hadda baraha bulshada aad iyo aad u qabsaday sawiro aan arkaayo balse inay been noqdaan ayaan rajaynaya haddii run yihiinne walaalkeen qaaliga ahaa wadaniga ahaa taliye farxaan qaroole ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday maanta ahayd maalintiisa ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay jannatul firdaws cala allah geeyo balse hadday been tahay dhagar qabayaasha argagixisada al-shabaab ayaa naftirkooda baraha bulshada wax ku leh yacni marar bay soo qaataan qof nool oo joogo ay sawirkiisa soo qaataan ay soo dhigaan marka insha allahu tacaala annagoo nool iyo annagoo dhimanayba ilaahay subxaanahu wa tacaala allah noo naxariisto naxariisna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh waayo adduunyada annaga ma lihin waa meel laga tagaayo halkan waxaan oga baaqayaa qolada qawaarijiinta ah zaalimiinta ah yahuudda ah fircoonka ugu weyn yahay cali dheere adduunyada maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh shaqsigii maanta soo kaa dishaan kii soo haro ayaa idinla dagaalaya insha allahu tacaala cid maanta aad wax u reebateen ma jirto xoolihii waad baabi'iseen shacabkii waad baabi'iseen ceelashii waad duugteen carruurtii xoog baad ku wadateen aabbayaashii cuquushaha waad disheen marka danta aad leedihiin waan fahansannahay laakiin danaha leedihiin idinma suurtagalaayo insha allahu tacaala balse waxaan leeyahay mar labaad hadduu walaalkeen qaaliga ahaa marna taliyaheenna qaaliga nagu ahaa farxaan qaroole horta aniga xaggayga aad iyo aad ayuu qaali oga ahaa waayo waxaan ogahay geerida maanta annagoo dhan waa ku wada xukumanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa aayaddiisa noogu sheegay waayo maalinteenna maalinna noogu dari maayo maalinteenna hal saacna noogu dari maayo ani waxaan kasii jeclaan lahaa baraha bulshada badanaa been ayay sheegaan inay qoladii qawaarijiinta sawiro ay soo direen oo beena inuu ilaahay ka dhigo hadday run tahay oo geeriyooday waayo geerida waan ku xukumanahay waayo nabigeena suuban sala allahu calayhi wa aalihi wa saxbihi wasalam ayaa geeriyooday maanta qaatimil ambiyaa hadduu geeriyooday oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay qafara allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'aqara annagana maanta geerida diyaar ayaan u nahay inaan cadowga argagixisada al-shabaab meel alaalameysay ku sugan yihiin aan kala soo baxno diyaar ayaan u nahay maanta mid annaga aan oga jaxanjaxeeno hadday 100 naga dhimato 100 kale ayaa diyaar u ah inay la dagaalaan ay soo qabtaan niyadda kama dhimanin annaga dad qalbigooda nool ayaan nahay dad maskaxdooda fiyowda ayaan nahay dad diyaar u ah sidaad idinka baadilka jannada ugu raadinaysaan annagana geeridiina haddaan idin dilno iyo haddaadna dishaan inaan janno ku galayna ayaan aaminsannahay waayo adduunyada waxaad ku haysaan wax loo dulqaadan kara ma ahan waa kibir oo alla subxaanahu wa tacaala looga furtay waa kibir oo ummaddii soomaaliyeed lagu baabi'inaayo waa kibir xoolihii ceelkii biyaha ay ka cabaayeen lagaga duugayo waad qooqdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala balse awoodiisii ayaa idinka sareyso
annagana waxaan diyaar u nahay nafsadda nugu jirto inaan ognahay geeriyoonayno waayo qofkii geeri aan ogeyn ayay u taallaa halkan waxaan kala hadlayaa fircoonka cali dheere la dhaho oo asigana sida hadda wararkii ugu soo gaaraya inuu geeriyooday aan maqlay ma geeriyoonina wuu baktiyey fircoonka cali dheere wuu baktiyey ma geeriyoonin geeri waxaa loo nisbeeyaa qofka muslimka ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran oo dhiigga islaamka iska badbaadiyo oo ummadda islaamka aanan dhibaataynin oo masaajidka ninka ku jiro oo ka badbaado ayaa geeri loo nisbeeyaa warar hadda waxaa soo gaaray cali dheeraha yahuudka ah inuu baktiyey naftirkiisu ay soo gaaray waxaan leeyahay nacaladda alle ayaa ku dhacday waayo intii al-shabaab la jirto ama taageersan ilaahay nacaladiisa ayaa ku dhacday waayo annaga calankaas dhabarkeyga ku sawiran aad aragtaan maanta waddankan meel allaala meeshii aan ka tagno calankaas ayaan ka taaganaynaa waayo quruxdiisa waa aragtaan baluugii waad aragtaan xidigtiina waa aragtaan dadkan diintii islaamka ayaad ka been sheegteen diintii islaamkii ayay ka been sheegteen calan bay inoogu soo qorteen kalimatu tawxiid laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayagoo ka been sheeganayo oo dhiigga islaamka ku banaysanayo hadday ogaan lahaayeen kalimatu tawxiid waxay xambaarsan tahay mayaysan u qaadan lahayn inay ummadda ku dhibaateeyaan waayo maanta haddaan dhahno kalimatu tawxiid waan soo koobaynaa lama koobi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa khaaliq ilaahay subxaanahu wa tacaala waa raasiq ilaahay subxaanahu wa tacaala waa maalik ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada waxa ku sugan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa keenay asiga unbaa ka naqi kara haddane cid walbo adduunyada ka tagtay aad arkaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka naqay mooyaane khawaarijiinta waxba ma naqi karaan waxna dadka ma bedeli karaan bulshada waxaan la wadaagayaa cabsida alle inay nagu badnaato mooyaane khawaarijiintan yahuudda ah oo caadaysatay inay ummadda soomaaliyeed dhibaateeyaan aniga waxaan diyaar u ahay inaan nafsadeyda u waayo waddankeyga anigoo difaacaya nin walbo soomaaliya waxaa laga rabaa go-aankaas inuu ila qaato oo walba waad dhimo laheyd haddaad aamustid waad dhimanaysaa haddaad qori qaadatid dagaalantid waad dhimanaysaa haddaad gurigaaga seexatid waad dhimanaysaa haddaad socotid waad dhimanaysaa haddaad fariisatid waad dhimanaysaa haddaad dukaankaaga furatid ganacsigaaga iska wadatid waad dhimanaysaa meel aad ku badbaadaysid ma lahan waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay idaa jaa ajaluhaa laa yastacqiruuna saacatan walaa yastaqdimuun ummadda soomaaliyeed meel allaala meeshay joogaan waxaan ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad in cadowgan layska dulqaado oo beel walba meeshay joogto ay ka soo kacdo shalay hadal yar aan soo dhigay baraha bulshada ugaaskii ku dhintay hirshabeelle sida marka hore yar aan saaxiibanahay ii sheegay waxaan u maleeyay inuu gurigiis ku geeriyooday waa shahiid ugaaskaas waa shahiid waayo wuxuu ku geeriyooday si xaq ah asigoo cadowga argagixisada al-shabaab hortaagan la dagaalayo waatoo asiga noo sheegay cadowgan waan la dagaalaynaa nafta waa inaan ku waaynaa anigana waxaan wax la qabaa ninkii kelmaddaas ku hadlayaa wax la qabaa waayo waddanka maanta dhibaatada ugu horeysa waxaa haysata waxay tahay cadowga argagixisada al-shabaab oo owlaadii xoog ku qaato odayaashii dilo cuquushii dilo aan waxba aan kala dhooran waxba ma kala socdo sidoo doono ayuu maanta waddanka ka yeeshaa dad baa maanta rabaayo u ah oo ayagana u isticmaalo sidoo rabo u isticmaalayo fadhigiisa dhaqaale u geynayaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed
maanta dhaqaale aad gaarsiisay argagixisada amba baad oo kaaga qaaday waxaan kuu sheegayaa walaalka un baa lagu dilayaa dhaqaalahaas aad bixisay walaalka un baa lagu dilayaa haddaan walaalka lagu dilin walaasha baa lagu dilayaa haddaan lagu dilin in adeerka baa lagu dilayaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno adduunyada allahna keenay aan xasuusanno aan dareegno inaan waddanka leenahay aan u dagaalanno qadiyad waddanka anigaa iska leh khawaarijna waan ka xuraynayaa maanta hamiga annaga nagu jiro yoosan naqanin hangaaban oo hooseeyo oo maanta niyaddiisa ay tahay maxaan cunaa war waxaad cuntid ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuu ballanqaaday ajashaada ilaahay baa ballanqaaday noloshaada ilaahay baa ballanqaaday muhiimadda waxay tahay inaan hal meel ka soo wada jeesanno aan u jeesanno cadowgan nabadiidka ah khawaarijiinta ah oo ummadda soomaaliyeed dhibaateynayso inaan hal meel oga wada imaanno ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala balse hadday geerida la soo sheegay ani xaggayga waxay ka tahay geeri aad iyo aad u xanuun badan waayo farxaan qaroole wuxuu ahaa halyey qaran ayuu ahaa hadday geerida aysan ahayn mid baraha bulshada been abuur haddaysan ahayn hadduu nool yahayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga rajaynayaa inuu adduunyadana naxariis ilaahay ku siiyo aakhiradana naxariis ku siiyo hadduu geeriyoodayne ilaahay waxaan uga rajaynayaa jannatulfardows aclaa inuu ilaahay geeyo waayo waa halgamaa u halgamaayo dalkiisa ku dadaalayay calankaas aad arkaysaan quruxda badan gadaasheeda ku sawiran inuu meel walba ka taago diyaar u ahaa marka askarti ayaan usoo noqonayaa askari walba waa inuu dareemaa geerida waan dareensannahay inaan geeriyoonayno dib u naqashayaysan jirin cadowgan khawaarijiinta meel allaala meeshii loogu tago horaha loogu sii socdo booskii laga qabtana ciidankii lagu wareejin lahaa ha la fadhiisiyo ha lagu sii socdo insha allahu tacaala fircoonka cali dheeraana waxay soo gaaraya inuu asigana baktiyey ma geeriyoonin wuu baktiyey waayo muslimka ayaa geeriyoodo yahuudka wuu baktiyaa ninka caadaystay dhiigga islaamka inuu banaysto dhiigga ummadda masaajidka ku jira inuu banaysto inuu xayawaanka dameerkii rarka saarnaa macal rarkiisa in la gubo sharci ka dhigay banaystay kaasi islaamnimada waxba kama haasto waxaan leeyahay hadduu nool yahayna wuu baktin doonaa hadduu baktiyeyna ilaahay uma naxariistee naarta allaha geeyo fircoonka cali dheere ah marka insha allahu tacaala waxa naga go-an oo mar walba diyaar aan la nahay inaan waddankeena u adeegno si hufan dhab ee naga tahay wadaniyad ah aan geeridana usoo diyaargarownay maahine geerida ma ahan mid aan ka cabsanayno ayaga waxay sheegtaan janno baan galaynaa jannada dhiigga islaamka laguma tago dhiigga islaamka la badbaadinaayo ayaa jannada lagu tagaa maanta annaga ka ciidan ahaan ciidanka waxay diyaar u yihiin dhiigga islaamka inay idinka badbaadiyaan yahuudda al-shabaab inay ka badbaadiyaan ciidanka maanta waxay diyaar u yihiin ummadda soomaaliyeed daarahoodii in la burburiyo diyaar loo soo noqday in ay ka badbaadiyaan yahuudda al-shabaab marka al-shabaab waxaan leeyahay waxba yaysan idinla dheeraanin geeridana waan ku wada xukumannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala janno cidoo geynayna asiga ayaa yaqaano sidaad jannada u raadinaysid ayaan janno u raadinaya aniga waxaan aaminsanahay aniga nin al-shabaab ah markaan dilo inaan jannada ku galayo waayo ummadda soomaaliyeed ayaan dhibaatada ka badbaadiyey nin khawaarijiinta ka mid ah haddaan dilo inaan janno ku galayo ayaan aaminsanahay ayaga hadday i dilaan inaan janno galaayo ayaan aaminsanahay waayo diintii islaamka ayay ka been sheegteen waxay ku bedesheen diintii islaamkii mabda' khaldan ee yahuudda iyo meelahaas ka soo heleen waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay hal qof oo mu'min ah intii la dili lahaa waxaa iiga fadli badan kacbada oo la burburiyo
maanta ayagii masaajidka un bay dad ku sugaan meelaha lagu cibaadeysto ayay dad ku dilaan marka diinta islaamka ma dhigtaa iga soo jawaaba diinta islaamka meel ay kaga qoran tahay culimada ayaan warkaan weydiinayaa diinta islaamka nin masjid ku jiro cibaadeysanayo ilaahay baryayo adkaartiisa akhrisanayo in la dilo diinta islaamka meel ay ka banaysay ma jirtaa culimada ayaan weydiinayaa ha iga soo jawaabaan su'aasha aniga nin caalim ma ahi balse laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu ifahansiyey waan fahansanahay balse al-shabaab waxay wataan dadka jaahiliinta ah aan waxba ogeyn ee ayaga cajalad gashan karaan iyo caruurta masaakiinta ah أولاً وعدي وحاقوين إلهي كعبسو إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسوح نقول لي ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين متكابا كهذا الفيعان ننكر هاي إلهي كعبسو وايا أيغا أرنتوذا متاقنو إلهي كعبسو وحيتاقنت هاي أرنتوذا إني حوله بابئيان إني بلشدي صوماليات دميان inay qof walbo aqli leh amba qof walbo mas'uul ah amba qof walbo aqoon leh dareemi karo inay daalimiin yihiin inay shayaadiin yihiin dareemi karo inay ayaga dilaan ay maansadaan balse laakiin dilka ayaga ma wataane ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wato halkaas aan ka hadlayo 5 sano inay ka badan tahay aan u malaynayaa qawaarijiinta sidaa un baa wax uga sheegi jiray maalinkii ilaahay ugu talagalayna waan dhimanayaa waan yaqiinsanahay inaan geeri u joogo waan yaqiinsanahay balse waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ma ahan in la fadhiyo ma ahan maanta maadaama mas'uulkii taagan yahay hortiina sii socdo furunta uu taagan yahay shacabkiina waxa looga baahan yahay inay biyaha ka daba geeyaan caanaha ka daba geeyaan la shaqeeyaan ciidanka midkii awood u yeeshan inuu qorigiisa soo qaato dhinaciisa ka galo cadowga nabadiidka ah qawaarijiinta ah diinta islaamka aan waxba ku lahayn mar walba danahooda yahay inay ummadda Soomaaliyeed baabi'iyaan taasi annaga mid aan maskaxdeena ogolaanaysa ma ahan waana ka daba tagi doonaa meel allaala meeshay joogaan fadhiisin allaala fadhiisintay fadhiyaan ayaan ugu tagi doonaa ilaahay idinkiis ilaahay waxaan ka rajaynayaa dalkeena oo qawaarijiin ka dhamaatay oo wadankeena oo hal madaxweyne leh oo xukunkiisa hal meel laga xukumayo Soomaaliya oo isku soo naqatay oo wanaagi shalay ay lahaan jirtay dib u yeelato ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa marka walaalahay Soomaaliyeed waxa idin leeyahay horta intii ku geeriyootay gacanta qawaarijiinta إلهي وحان أغبر يا جنة الفردوس الأعلى إنه إلهي جيو إلهي وحان أغبر يا ميل الله لميل إلهي لرجع لها إنه جيو وايو وحان أغنها آمن سنها ما أنت ودنك أنك عن لنا إن أنك نوبة هي ودنك أنك أنا أوبة هنها وايو ذلك لما لهن ما أنت وحان لنا ذلك لما قعب حي سوماليا maanta haddaan dareemi weyno dhibaatadii Soomaaliya haddaan dareemi weyno aan wadaniyad dareemi weyno ilaahay iimaanka ayuu hore nooga sii qaadaya war walaalayaal nabiga calayhi salaatu wasalaam wadankiisa wuu jeclaa markii maka laga bixinayay asigoo dhahayo mako asoo dhahayo ayuu ka baxay markuu ku soo naqanayna mako ayuu lahaa maanta anaga dalkeena Soomaaliyeed oo maanta qawaarijiin soo dhaxgaleen oo fircoon qoomkiisa ah diyaar u soo noqdeen inay bulshada dhibaateeyaan inay xoolihii dhibaateeyaan inay maatadii jidadka ay ku dilaan caruurta ay dilaan maanta waxaan u kicilahnaay aan u fadhino damiir la'aanta na haysato taasi waxay ila mid tahay iimaan dara anaga na soo gashay war walaalayaal iimaanka waxa lagu tilmaamay أضعف من الإيمان وحا إيمانك وير ودد أو خشنك لغا قادو ما أنت ننك ودد ديك كود عدينايو وإن لدقالنا وإن ميل ألا لميشي جوغان وقتقنا أن كسو بابي إنا سوق بنا
nabadoonkii oo dagaalka ku dhintay asoo dagaalamay dhintay hadalkiisu ugu dambeeyay qof walba oo aqli leh wuxuu ka baxsan karaa waay wadankan inaan geeriyoodo amba inay Soomaali xornimo ku noolaadaan labadan kali baan aniga ii qoran aniga geeri baa ii qoran inta iga dambeysana xornimo inay ku noolaadaan ayaan jeclaa haddaan aniga nafta jeclaado amba dib u socod aan noqdo qabaarijiinta booskeeda ayay taagnaanayaan sheekadana waxay ahaanaysaa jugjug meeshaada joog marka insha Allah taala toogtaan ma dhici doonto mana dhici doonto meel allaale meeshay joogaan ayaan ugu galaynaa qoladan yahuuda ah waan soo qaban doonaa insha Allah taala intii gacantooda ay ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta dagaalka ku jiro ilaahay guusha siiyo intii hadda u socoto ilaahay ha u fududeeyo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa mar walba inaan ka guuleysanayno aan soo baabi'in doono soo afjari doono insha Allah taala waayo waxaan ilaahay dhihin ma toosayaan waayo ayaga ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisii ayay si qaldan u adeegsadeen axaadiista nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka sugneed ayay si qaldan u adeegsadeen axaadiistaas waxaa ka mid ah ee ayaga ay u adeegsadeen xadiiskii ee ummuna Aisha radhiyallahu anha ay ka warisay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam awala nabiga ku salliya maanto maalin jimca ah maalin fadli badan oo ciidul muslimiin ah nabiga ku salliya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam xadiiskaasi wuxuu ahaa qoom ayaa ku soo duulay Kacbada qoomkii markay ku soo duuleen markaas ayaa nabiga wuxuu yiri yaqsifu bi awwalihim wa aakhirihim ummuna Aisha radhiyallahu anha waxay tiri ya rasuulallah kayf yaqsifu bi awwalihim wa aakhirihim يعني dhaxdooda waxa ku jiro بينهم أسواق dad suuqley ah mid dukaankiisa iibsado islaan burgado mid shaahi gado ayaa ku dhax jiraane ya rasuulallah kayf yaqsif bi awwalihim wa aakhirihim nabigeena suuban sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dib ayuu ugu soo celiyay wuxuu yiri yaqsifu bi awwalihim wa aakhirihim ayadina way ku soo celisay ummuna Aisha radhiyallahu anha waxay tiri kayf ya rasuulallah baynahum aswaaq يخسف بأولهم وآخرهم يعني دولك لولا غوينيا دad أسواق سوقليه مرسد حاد markay ku soo celisay ayuu wuxuu yiri thumma yub'athuna ala niyati hadow ilaahay ba kala saarayo ki dukaan leey aha dukaankiisa buu ku ekaanaya ki aha miis iska gadanayo baraf gadanayay meeshiisa ayuu ku soo baxaya midkii duulaanka ahaana duulaankiisa buu ku soo baxaya بس maanta al-shabaab waxay adeegsadaan xadiiskaas ay been ugu adeegsadaan ummadda Soomaaliyeed ay dhahaan ilaahu 300 ayaan soo dilay mid kala bax ma ahan Soomaalida kuwa masaajid ku duulay ma ahan Soomaalida kuwa Kacbada ku duulay sababta aad ku gaaleysiisay maxay tahay intee lagu arkay meel annaga aan ku gaalownay diinta aan haysano waa diinteena suubanaha sallallahu alayhi wa sallam inoo soo dajiyay ayada ayaan ku dhaqanaa ayada ayaan ku amal falnaa ayada ayaan akhrisanaa ma naqaano diin kale meelay ka imaato waay khaatimul anbiyaa wal mursaliin diinteeni way khatiman tahay waa la soo khatimay nabigeena Muhammad oo anbiyada lagu soo khatimay ayaa inoo soo khatimay hadda kadib wax soo baxaya male balse buugaagta 12ka beej ku qoran oo qolada arxan laawayaasha ay wataan ee ummadda ku dhagarayaan ee ka dhiganayaan diin ayaan wadnaa diin ma wadaana dulli ayaa wadaan diin ma wadaane xoolaha inaad baabi'isaan ayaad wadaan diin ma wadaane waxaad wadaan inaad adduunyada aad cadaab ku gashaan aakhirna cadaab ku gashaan waa nin isgubay cadaab saas buu ku galay wuu u bilaawday cadaabkii nin hadoo isgubo cadaabkii waa u bilaawday kii dambana waa u sii dambeeyaa waay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tulquu biaydiikum ila tahluka gacmihiina ha isku halaagina maanta nin gacantiisa isku halaagay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh sacdiye xaaji walaashay
جمعة وناكسن إلهي أنا قبت خوارجين تان أنا قروا ذلنا إن شاء الله تعالى أو ودن كدبعتين يان أو برشة دبعتين يان أو هو أيسن دافن أب أيسن دافن أضي أيسن دافن عنق ير أيسن دافن نحرز درا ماشي يكو قارين عنق أفرجرأ شنجرأ نندلايو مدين بوليه وينوس عندنا فرعون كأوين على الدائرة بختيس اللي يسوع شيء وحن رجينا إنه نقضه ثم إنه نقطه بختيس إنه بختيي أنت ولا عليه أجيريودين قعنت عدو كوجيريودين قعنت أرجع حسد كوجيريودين إله سبحانه وتعالى وحن رجينا يا مانتو جمعة إلهي إنه جنة الفردوس على جيو إلهي وحن رجينا يا dadkii u dagaalamay ummadooda inay badbaadiyeen inay yihiin waxaan ognahay marqaati ka nahay inay naga tahay annaga daacad inaan ummadda u adeegno inay naga tahay daacad inaan wadankaas ugu geeriyoono aanan cabsi u geeriyoonin manihin daalimiinta qawaarijiinta waxay ku dhaqmaan kuma dhaqmi karno maanta cunug Soomaaliyeed in been lagu dilo raali kama naqanaay هو Soomaaliyeed in been lagu dilo raali kama naqanaay abwaan Soomaaliyeed in been lagu dilo raali kama naqanaay mas'uul Soomaaliyeed in la dilan raali kama naqanaay waayo waa kuwan xukumaan marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa mar dhow ugus arxan laawayaasha ah inaan waqtigooda aan soo jiidi doono aan keeni doono meel alaala meesha ay dawladda qabsatay inaan waqtigooda idin soo sabiri doono insha Allah ta'ala walaalaha Soomaaliyeed ilaahay dartiis ayaa idin jecelnahay idinkana waxa idinka doonayaa ciidanka ilaahay dartiis u jeclaada ciidanka la shaqeeya waayo ciidanku idinka waa u baahan tihiin idinkana waa idin baahan yahay baahida labadeena waa isku qabnaa aniga adiga waa ku baahanahay kaama maarmo adigana waa ii baahan tahay igama maarantid waayo waxa jiro nabadiid adigana aan ku dhaafin aabahana dhaafin walaashaana dhaafin cunugaagana dhaafin ummadda waxba aan u kala baxsaneen xoolaha aanan ku dhaafin ceelasha aanan ku dhaafin ayaa hortaagan cadawgaasna waxa lagula dagaalami karaa annagoo isku duuban aanan ahayn beel annagoo dhan hal beel isku ah ayaan ku cirib jari karnaa insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka rajaynayaa Soomaaliya beel kaliya Soomaaliya mid ah ayaa ilaahay ka rajaynayaa Soomaaliya isku duuban ayaa ilaahay ka rajaynayaa halkan waxaan ka salaamayaa madaxda oo idil meel alaala meeshay joogaan mansabka ay ku fadhiyaan ayaan ku salaamayaa halkan waxaan ka sii salaamayaa madaxweynaha qaranka mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaan halkan ka salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa Ra'iisul Wasaare Xamse ayaan halkan ka salaamayaa halkan waxaan kale ka sii salaamayaa madaxweynihii sagaalaad mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan hore u sheegay ilaahay dartiis ayaan u jeclahay kuma jeclaanin kursiga lacag oo asiga leeyahay wili ima soo gaarin haddana lacag uguma baahni ilaahay dartiis ayaan u jeclahay asigana waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala guul iyo liibaan iyo farxad Allah hortaada soo dhigo cadowna ilaahay hortaada ma keena insha Allah ta'ala Soomaaliya ha noolaato wadaniyada ha sareyso wadanka aan u adeegno horumarka wadanka aan ka shaqeyno guulaha wadanka aan ka shaqeyno yaana naqanin maanta qof wadankiisa la dhibaateenayo oo ku qanacsan oo qoslaayo yaana naqanin qof wadankiisa markii la dhibaateeyo inuu qiiroodo inuu dareemo inuu la murgo ayaa loo baahan yahay dad baa farxad ka muuqata iska qoslayaan maanta ma ahan maalintii qosolka intuu cadowga argagixisada al-shabaab wadankaas ku sugan yahay nooma ahan maalin qosol waxay noo tahay maalin murugo leh ilaa aan ka baabi'inayno halkooda ugu dambeeyo marka insha Allah inaan dareegno cadowgaas aan iska dulqaadno oo wadankeena aan runta u adeegno aan geeridana u diyaar garowno ma ahan nolosha kaliya diyaar ha u noqonin geeridana diyaar u noqo waxaan la hadlayaa askariga ayaan la hadlayaa waxaan la hadlayaa shacabka muwaadiniinta ee u soo kacay inay la dagaalaan argagixisada al-shabaab ugus ayaan la hadlayaa intii la dagaalamayso dhan
انت قلبك كان نعب أيان لها الليا مر والبن وحان كد ذالينا عن رجيننا إن شاء الله تعالى إلهي إذن كيس إن أي بابي دونان مردو أو مقعودا اللوان دونو انت نقد مثلا ديار بامبون هاي بدي مشهد ما أنت من عنك عبسانين معهن واي جيريد إلهي بانو حكومي بس sidoo kale manihiino meenina isku xirno umada shacabka ma dhaxgaleeno isma qarxinayno bal saxabad ay soo ridaan ama mid aan ku ridno labadaba inaan ku geeriyoono toodan inaan ku geeriyoono diyaar ayaan u nahay teenan inay ku geeriyoodaan diyaar ayaan u nahay labadaba marka insha Allah ta'ala waa idin ka soo afjari doonaa mar dhow insha Allah magacooda ayaa la waan doonaa ogaada ugus waxa idin sheegayaa halyay qaran haddoo hal xabo baxo kun halyay ayaa soo baxayso kun halyay markay soo baxdo waa maalinkaad baabaysaan waad maalinkaad baabaysaan aad idinka dhulka ku darsamaysaan oo maalin meel aad jaan dhigtaan la waan doono insha Allah ta'ala halyaygii naga baxo kun ayaa soo baxayso Soomaalinimadana ma naga baxayso wadaniyada ma naga baxayso horumarka wadanka iyo guulaha wadankana waxaan u taaganahay dhaxanta iyo qoraxda ayaan u taaganahay idinkana daalimnimada waxa u taagantihiin Baytullaahi hortiisa inaad qof ku dishaan marka cid guuleysato waa arkeena Fircoon Cali Dheeri qoomkiisa iyo ciidanka Soomaaliyeed cid guuleysato waa arkeena soo hore u yiri asiga madaxweynaha qaranka dhaartaadii iteeda mid run waa arkeena Soomaaliyeed hadda waxaan arkeynaa ciidanka Soomaaliyeed iyo qolada qawaarijiinta ah cid guuleysanayso waa arkeena guusha waxa iska leh midka badbaadinaya nafta Soomaaliyeed wiilka Soomaaliyeed ninka badbaadinaya ayaa guusha iska leh guusha waxa iska leh ninka daaraha Soomaaliyeed badbaadinayo guusha waxa iska leh ninka qadiyada wadaniyada ku dagaalamayo aanan ka tagin diintiisa islaamka balse idinka waxa tiin qof diinta ku been sheegto intay ku guuleysanaysaan nin diin ku been sheegtay guul ma sugo al-shabaab ugus diinta ayaad ku been sheegataan guulaha sugina waay qaal Allah ta'ala nin been ka sheegay ilaahayow 300 qof ayaan ku soo dilay kala saaro nin dhahay war 300 qof maxaa ku dishay ma ii sheegay kartaa 300 qof maxaa ku dishay ana ii baahan tahay aniga keligay anoo ii imaaw idil meena u soo tuur balse 300 qof ina tareemina markaad soo dhaxgilis sababta aad ku dishay maxay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiis markii la tago waa lagu weydiinayaa ugu soo waxa lagu leeyahay 300 qof ayaa soo dishay maxaad ku dishay oo dan ay kala heed maxaad dhahaysaa ii sheeg ilaahay maxaad la hortagaysaa su'aasha markii lagu weydiiyo 300 qof waad soo dishay danta aad kala heed maxay tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku weydiinayaa maxaad ku jawaabaysaa ii sheeg wixii dhiileed ثم يبعثون على نياتهم ما دهسا إلهو كلا سارو هل قف أيام كل حركة ودولة هوان سود ليه إلهو كلا سار ما دهسا وادلودين وادفدرودين إيمانك إلهي إذن كقاضي سيدي أبي صدي آياتهين يسيد دبقلوعي أبي صدى دتك ويقنين تادنا كمالهن شباب كمرك وحيقونا غطي إنه شعب كلايو سيدي أبي صدي وكله وحيو دنك ليه هنا مالهن waayo dawladda kama xoog badiyo dawladdi isku ma soo dhigi karo ma soo aadi karo inuu dhagar suubiyo miina giliyo inuu xoolaha ka dibdilo inuu qof meelaha u gaadgaado sidii tuugo kale u dhaqmo mooyaane al-shabaab inuu soo baxo dawladda ma soo weerari kara awoodaas uma lahan insha Allah ta'ala waan soo afjari doonaa mar allaale mar walba qalbigeena waxa ku jira mar walba inaan geeriyeeno haddii casarkii la gaaro waxaan aaminsanahay inaan caawa aanan nafta la seexanaynin hadda habeenkii la gaaro waxaan aaminsanahay inaan subax gaareenin balse al-shabaab adiga ina iska joogaysa daa aaminsan tahay geerida ilaahay baa noo balan qaaday annagana wadanka waan difaacaynaa adigana wadanka dhibaatay insha Allah ta'ala meeshay noo gaarto ayaan arkeena dhibaateenta wadanka ku dadaal annagana badbaadada wadanka badbaadada shacabka ayaan ku dadaaleyna insha Allah ta'ala guusha ciday u dambeysana waa sugeynaa insha Allah ta'ala maanta maalin jimca ah waa maalin ciidi muslimiinta ah haddii masaajidka iridiisa aad fariisanaysaan aad ku raadinaysaan in masaajid ku tukanayo diinta aad wadataa maxay tahay ii sheega
يا إيش يا دين تعبوتان أتكيشين نين بيت الله يرديس لجوس سجايو لقاضايو ما إسرائيلتين إسرائيل بوحي وبحين بيت القدس أيام دجال قاضينا وأوجابي إسرائيل أيات كلا إماتين شيكوين كان أبوتان مركب كتابك إلهي دينتي إلهي نوسو دجيي والنبي ينصوبن نوسو دجيي بنت كدايا حكبين شيغانينا ديغ الصوماليات ها وبنيسانينا ها وعاديسانينا إناد دينتا أدوغا بين شيغتان والدين فهمي شعبك وايدين فهمي عيدان كان هروب دين أوغابا دقالك وايدين كل جيرني مانتو وايدين كل جيرينا بري وايدين كل جيرينا إلا إذن كل دين وايد دقالك وايدين كل جيرينا حتى الجنة أباهنتا يعني أنا جنة يا أباهنا على الشباب حتى الجنة أباهنتا هاي أنا جنة يا أباهنا عندي جنة قال سوار كنا جنة إلهي دونستي سألو قال يا مويان لو ما قال ديك إسلام كا جنة إلهي نيكو قلت له قال أيا قالوا نبى وحنكم مغلي سجاشن إسجال ديوان أيوه وطاو حنك دقيستي شيخ آدي هذا أنجع الله شيخ حسين علي جبوتي هل كان كسلام يا وحنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حسين علي جبوتي شيخ آدي هذا أنجع دقيسته وعد جيسة أيوه كم دي هاي سيدا الشيخ عبد الرشيد على الشرم عركه يعني علماء بدن يعني وعد جود دقيسته يمكن بحسنه بس آدي شيخ حسين علي جبوتي بأنجع دقيسته الشيخ عبد الرشيد على الشرم عركه marka waxaan ka maqlay ninba 99 diiwaan wato oo diiwaanki baleeg yahay adduunyada cirifkeeda ilaa cirifkeeda kale waxa ku qoran dunuubta oo galay markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa la horgeynaya waxa la leeyahay 99 diiwaan oo dambi aad gashay ku qoran yahay ayaa lagu haayaa marqaati ma ka tahay ma la socotaa inaad dunuubtan gashay wuxuu leeyahay ya allah إلهي ودنبيان أنا قلي مركز أيا هدنا وحل ليه وحلقوها يا حل ورقد وعذيك وناك أتقص ما يستي ورقدنا وعلقوصه بحنا يا أوكادي ورقد يا الله صوب بحنا يا نينكي سجاشن السجال ديوان والدنيا دنا عيدا إلا دنا عيدا كلاك ودنبي له كقرن حل ورقد محوس ديه كرا يعني الدنبي جاء بدن سوسنا داي ميزانك يا الله صاري markii loo saaray warqada waxa ku qorneed kelimada ay ka been sheegteen qoladan ugus ee calanka ay ku soo qorteen kelimatu tawxiid kelimatu la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ayadoo yaqiin ay ka tahay ay dhab ka tahay maalin oo ku dhawaaqay ayaa ku qorneed kelimadaas inay qaali tahay ee ayagana maanta dhiig islaamku u adeegsanayaan ayaan u sheegayaa ninkii markii loo saaray miisaanka wasnigi wuxuu noqday كلمة لا إله إلا الله يا هوس نغطي وحكر مري ديوانكي سجاشن يسجال كديوانها مركب وحنا شيء يا أوس كلمة دعات كبه شيئتين كلمة التوحيد إذا مصور تجلسه أنا جوان يقين سجنا هاي إن جيريونينو أنا جوان يقين سجنا هاي إن معلم لمن دونو إلهي بأنه بلنقاضي حتى وحنا يقين سجنا هاي إن فرعون كعلي ديره وبختيه هذا يسوع جاري هذا بختيه وامد عن ربي هذا صم بختينين أنا وجيدين إن كانوا يعيدين بلنقاضينا إن شاء الله تعالى سوماليا هنولات سوماليا هم يدودو سوماليا متكلية هنقطو حتى رينتو عدو ما أنت ودن كذا كسود دولي حتى رينتو عدو حوله هذا كسود دولي حتى رينتو عدو عيلش هذا إنه دوجو كسود دولي حتى رينتو عدو أولاد هذا إنه بابي ديارك واه حتى رينتو أضياشة عقوشة علماء dadka cadowga inay dhameeyaan diyaarku ah hadareento halka mas'uul ku soo baxo oo wanaaga ku dadaalo wadaniyada ku shaqeeyo cadowga inuu dilo diyaarku ah hadareemaan balse laakiin geerida waa wax jira ilaahay baa keenay ayagana shaydaankooda un baa adeejiyay mooyaane geeri gacan kuma hayaan geerida ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa taas aan yaqiinsanaano نبي عليه الصلاة والسلام أيها وحل ويدي ذاتك يباع وأخلي بدن أيها اللي يري وحيري نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثرهم للموت ذكرى ذاتك اللي مشدعوك
maanta waan ognahay dhimashada geeridu waan ognahay waan sugaynaa marka cidaan ogeynay u taalaa shabaab inaan baabi'inana diyaar ayaa u nahay shabaab inaan soo qabana diyaar ayaa u nahay duurka kooda ku jiro iyo kooda magaalada ku jiraba inaan ayagoo jeebeysan aan soo maxkamadayno diyaar ayaa u nahay geeridin waa mid aan sugayno mid aan ka gagabanayna ma ahan wuxuu yiri nabiga aktharuhum lil mawt dhikra wal isti'dad lahum ulaika humul ikyas dhahabu bi sharafati dunya wa karamati al akhirah marka inta adduunyada joogna aan wax baxsano waxaan sadaqaysano annaga ay inoo roon tahay geeridina waa waajib annaga nagu iimaanayso cid walba ku iimaanayso cid ay badbaadinayso malahan cid walba maanta adduunkaas ku sugan way geeriyoonaysaa balse waxa loo kala baxayaa man amila salihan falinafsihi ninki amal wanaagsan suubiyo naftiisa ay u suubsaday man amila sayi'atan falinafsihi ninki amal xun suubiyana naftiisa u suubsaday marka amalka wanaagsan بعشر أمثالها أيو إلهي يري عمل كحونه حال حبا يا لغو قرية إن شاء الله تعالى حمان إلهي باكن الزهن إلهي حمان تعنا إلى عليو إلهي إنا وطن كينا دفاعنو أن عدو وان كباب إنو نقرنسيي أو مسكح دينا نظيف كدقي أو قلبي جينا الدرنسيي والدنيا قليي الله سيا أولا ما هذا إسكاله مركو مدى الصوماليات ميل الله لميشي جوكتان إلهي درت سعيدين جعلهاي صوماليا هنولاتو Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha guuleysato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya Ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtooda Allah isku soo celiyo Soomaaliya meel allaale meeshay joogan waa isku baahanahay maanta aniga Soomaaliland waa u baahanahay maanta aniga Soomaali meel allaale meeshay ku joogto waa u baahanahay Hirshabeelle waa u baahanahay Koonfur Galbeed waa u baahanahay Galmudug waa u baahanahay Buntland waa u baahanahay Jubbaland waa u baahanahay waa walaalahay kulligood Soomaalida kelinka shanaad waa u baahanahay Soomaalida Itoobiya waa u baahanahay Soomaali meel allaale meesho joogo waa u baahanahay kulli waa walaalahay waan wada dhalanay war Ilaahay isku soo keen celiyo Ilaahay qulubteena na soo celiyo Ilaahay dulumkan na dul taagan inaan baabi'ino Allah na garansiyo insha Allah ta'ala guul mardow insha Allah waan rajaynaynaa قول وانا جينينا إن شاء الله تعالى أنك قريق وحن أقاضني إن عن كل مرول بقى له تجمع عدو أرجع حسد على الشباب وقص وحي إنه بلن أكاس سو ما عرفتان وقصو وهنجب قبلها مساكين تعتق توق جوجان بس أني أديك إلهي درتيس أيام وحن بلن لقلنا إن عن دجال كاجا جنة عن كوبالينو سيدا عظالم لماذا عدو شيء ina umada Soomaaliyeed dhameentooda jannaha ku galeysid balse annaga waxaan aaminsanahay inaan wadankaas ka baabi'ino inaan janno ku galayno insha Allah ta'ala ilaahina raali buu nooga yahay kaasna adiga ayaan ku wadanaa mar walbana waxaan taaganahay furunta god allaala godka ku jirtidna waa kuugu soo gali doonaa ma ka cabsanayno fircoonka cali dheera iyo inta wicilada ah nin xalaal ama raaco fircoon cali dheera ma raaco nin hooyadiisa xalaalnimo ku dhashay ما راعوا فرعون كاس وايو والد كاغا يا دل لغو ليهي ولال كاغا يا دل لغو ليهي aabaha ayaa dil lagu leeyahay in adeerka ayaa dil lagu leeyahay sidee ku ogolaan kartaa war maskaxdaada intee jirtaa midka qarax lagu xirayo maskaxdiisi aniga hada dawladda aan ka tirsanahay ma ogolaanay in miina lagu xiro aan al-shabaab u tago isku qarxi ma ogolaanay واي إلهي بأيري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حداد إنا وحقر حسان ربطان أولادينا قر حسان جنة كوكلا حداد وحقر حنيسان إيه الكين قرحية جنة كوكلا ومضى سوما البنانك مرة سيدنا قبت بأدو يهود دقالهم بانا قد إن شاء الله تعالى الشباب مردو والدين وين دونا إن شاء الله تعالى سوماليي إلهي درس أيادين جعل هذا الكائدين كبديي واي waxay ka keenay wadaniyada maanta wadanka waan jeclahay cadawgan nabadiidka aan waan nacbanahay inta jecel ilaahay dartiis ayaan inta oo cadawga nabadiidka jecel ilaahay dartiis ayaan u nacbanahay inta cadawga nabadiidka ka soo horjeedan ilaahay dartiis ayaan u jeclahay adduunyadan waxa ugu jeclahay cid nabadiidka la dagaalsan oo ka hor imaanayso oo mar walba mabda'ooda aan ogoleyn inaysan diinta islaamka haysanin ku tilmaamayso intaas ayaan jeclahay insha Allah ta'ala
aan isku furnaano qalbigeena aan isku furno aan isla wada shaqeyno cadowga aan ka wada hortagno geeridina waa noo sugan tahay mar walba waan sugaynaa cidi dhimasho aan aaminsaneyn waa dhimanaysaa ogaaw ee fadhiga laga kaco ha loo midoobo dagaalka ha la wada galo cadowgan sidaan ku baabi'in lahayn waa maalmo gudahooda waa lagu baabi'in karaa insha Allah ta'ala wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadalka hadaan badiyeyne maxabba idin qabo jacayl idin qabo Soomaaliya oo Ilaahay dartiisa aan u jeclahay soo dhawaada ciidanka oo idin duceynaya idinkana u duceeya la shaqeeya mar walbana horumarka wadanka ka shaqeeya guulaha wadanka ka shaqeeya wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh